madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa salka u dhigay dhaqangelinta heshiiskii bishii December horaanteedii ku dhexmaray Galmudug iyo Ahlu Sunna xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya kadib 3 cisho uu joogay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug. munaasabad ay goobjoog u ahaayeen wakiillo ka socday beesha caalamka iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee Soomaaliya oo ka dhacday halkan ayaa looga hadlay ahmiyadda heshiiskan. waxaana beesha caalamka wakiiladii ka socday ay intuba ballan qaadeen inay taageeri doonaan heshiiskan dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyagoo ku booriyey dhinacyada Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo Galmudug in ay door fiican ka qaataan sidii heshiiskan loo dhaqangelin lahaa. madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ka codsaday dawladda iyo beesha caalamka inay garab istaagaan Galmudug isagoo Soomaalidana ku dhiirigeliyay in ay bartaan in la isu tanaasulo. waxaan rabaa in maanta midnimadii Soomaaliya la horseedo. waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dhammaantiis in ay bartaan oo aan ku maaragtay aan ku encouragement ku siino ku geesinimo gelino inay isu sabraan. beesha caalamka iyo dawladda federaalka iyo saaxiibada maaragtay dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir dhammaantiin waxaan idinka fadhinaa oo maanta meeshaan u joognaa waa idin sugaynaa ogaada waxaan idinka sugaynaa inaan raacno gobolada hore u socday. madaxa xukuumadda dawlad goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ayaa muujiyay sida uu diyaar ugu yahay dhamaystirka dhaqangelinta heshiiskan. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa qof kasta oo ka geystay gacan in ay midoobaan gobolada dhexe una midoobaan cadowgooda. waxaan rajaynayaa dadaalkii iyo juhdigii aad muujiseen madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Ducaale Xaaf iyo aniga oo Maxamed Shaakir inaan u istaagi doono inaan dadaalkaad bilowdeen dhammaystirno inaan u istaagi doono inaan idinka ballan qaadno. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay dhinac taagan tahay heshiiskan awood kastana ay ku bixi doonto. heshiiskan maanta waxay muujinaysaa inay tahay guul kulli u soo hoyatay kaliya ma aha Galmudug ee ummadda Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed. waa mid albaabada u furtay nabadda wadajirka iyo wax wada qabsiga reer Galmudug. mudanayaal iyo marwooyin heshiiska aan maanta aan dhamaystirayno waa mid ku yimid biseel siyaasadeed iyo tanaasul ay la yimaadeen madaxda labada dhinac. heshiiskan maanta waa mid bilaaw ah oo u baahan in la sii wado lana qanciyo cid walba oo wax tabanaysa inaan qancino oo aan ugu tagno meelahooda. dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay gacan buuxda ka siiso dawlad goboleedka Galmudug sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskan loona dhisi lahaa hay-adaha maamulka iyo kaabayaasha dhaqaalaha loona xoreyn lahaa degmooyinka ka maqan gacanta Galmudug. madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale waxa uu maanta tagay xerada taliska ciidanka militariga ee 12aad ee ku taala magaalada Dhuusamareeb halkaas oo madaxweynuhu kula hadlay ciidamo militariga oo ay leeyihiin Ahlu Sunna wal Jamaaca kuwaas oo ila wareegtay dawladda Soomaaliya kuna biiri doona ciidanka xoogga dalka. maanta runtii waxay tahay farxad inaan soo hor istaago oo aan idin arko oo aad tihiin dadkii runtii u soo halgamay una soo dhintay una soo dhaawacmay difaaca dalkiina iyo dadkiina oo aad ka xoreyseen oo si wanaagsan aad ula dagaasheen qolooyinkan horarka ah oo nabadiidka ah oo Soomaaliya horumarka u diiday inaad u diidaan inay ka soo galaan albaabka ee gobolada dhexe isku xira
ilaa puntland isku xira waxaad u noqoteen derbi waxaad u daadiseen dhiiggiinna waxaad u hurteen naftiinna runtii waxay tahay arrintaasi arrin laydinku abaalmariyo ilaahayna idinku abaalmariyey annagana dowlad ahaan ay tahay waajib inaan idinku abaalmarino bacdamaa aad u soo dagaasheen oo aad u soo dhimateen aanad ka difaacdeen qolooyinkaas horarka ah inay dadkeennii iyo diinteenna ay beddelaan waad ku mahadsan tihiin abaalna waa idinkaga haynaa in sha allah hadduu ilah yidhahdana waxaan abaalgud idinkaga dhigaynaa inaad ka mid noqotaan ciidanka qaranka soomaaliyeed oo difaaca u taagan habeen iyo maalinba dhaqangelinta heshiiskan galmudug iyo ahlu sunna oo isku noqonaya hal dawlad goboleed ayaa waxa uu noqon doonaa mid ahmiyad badan siiya dhammaanba gobollada mudug iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaana munaasabaddan dhinac socday in caalanka galmudug oo halkan aan ka taagnayn halkan laga taago maanta taasoo muujinaysa in galmudug ay si rasmi u degtay caasimaddeedii oo ah magaalada dhuusamareeb cali baashi cabdulaahi warbaahinta qaranka magaalada dhuusamareeb